Assalaamu calaykum asxaabi kusoo dhawaada iskaashato entertainment halkaad nagala socotiin waa iskaashato waxaan haynaa barnaamij ku saabsan qadarkeyga ku xirnaa sidaad la socotiin ba dalkaas iyo Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa waxaan soo gaartay in uu imaan doono berito oo lasoo deyn doono insha Allah dad badan ay isweydiinayaan sida lagu xiray qadarkeyga maxaa sababa maxaa keenay maxaa lagu qabsaday waxyaabahaas oo dhan ay bulshada isla dhexmarayaan waxaan leeyahay fanaanka Soomaaliyeed ilaahay ha nabad keeno asoo nabad qaba waxaa la dhahay asiga wuxuu joogay dhawaanahanba sida uu sheegay Cabdi Dhaanto Hargeysa kabacdi wuxuu tagay dalka Ethiopia marka migration-ka lagu qabtaa lahay bacdin habeenkii meeshuu seexday subaxii waxaa loo gudbiyaa lahay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa laakiin ma xaqiijin karno xabsigu ahaa iyo meesha uu ku yaalo intaba laakiin waxaan ognahay in insha Allah berito uu imaan doono fanaan qadarkeeyo waana fanaan Soomaaliyeed oo aad u cod macaan jiilka soo baxaya ayuu ka tirsan yahay anaga haddaan ahay iskaashato entertainment xiritaanka fanaanka aad baan ugu xumaanay waana wax qurux badanna ma ahayn waxaan leenahay ilaahay ha noo nabad keeno fanaan Soomaaliyeed Ethiopian walahi ma aqaan fanaanka waxay ku xirtay waa arin lala murugoodo waa arin lala yaabo qadarkeeyo berito sida la sheegayo wuxuu imaanayaa 5tii aadan cadde garoonka magaalada Muqdisho ku yaalo kusoo aadan yahay xogtaasna waxaan ka haynaa Cabdi Dhaanto asiga yiri insha Allah berito wuu imaanayaa abaara 5tii hadduu Ilaahay idmo fanaaniin badan oo Soomaaliyeed baa aad ugu xumaada arintaas fanaan Dayaxdal Nuurshaad kamid ah Instagram-kiisa page-kiisa soo dhigay aadna wuu ugu xumaa fanaaniin badan oo Soomaaliyeedna way ka xumaadeen waana wax laga dhiidhiyo YouTuber badan oo caan ah way ka soo hadleen aadna way ugu xumaadeen anaga xitaa bahada iskaashato ahaan aad baan ugu xumeen arintan arin cajibisa ma ahayn ducadeena Ilaahay noo aqbalay maxaa la yiraahdaa fanaankana waa fanaan Soomaaliyeed sababtoo ah waa jiilka hadda soo baxay daansiga xageesa ninka maanta Soomaaliya isdhiig karo nin gaaro fanaan sidaas oo kale taa ma jiro haddana codkiisana waa cod aad u macaan waa jiilka Muqdisho waxaan leeyahay hore u soco qadarkeeyo arinta kugu dhacday walaal waan ka xunnahay alxamdulillahna waa hadday Ilaahay ka soo fududeeyay xariga lagu geystana wax qurux badan ma ahayn nimcaan hilaa sidoo kale asiga xitaa uu ka hadlay sida la sheegay barnaamijka aadna ugu dhiidhiyay sidoo yaray fanaanka Cabdi Dhaanto sidii lagu soo dhaweyn lahaa berito insha Allah fanaanka Soomaaliyeed insha Allah beritana wuxuu soo gaarayaa magaalada Muqdisho Soomaaliyeedna waa inuu istaagtaa waa fanaan qaran waa fanaan Soomaaliyeed waa fanaan da'yar fankiisana ay dadku dhan wada jecel yihiin waxaan leeyahay Soomaaliya ifka lagu yahay walaal ifka la isweeshadaa meedesta marka aniga kastoo fanaanimadana ku qurux badnayn waxaa leeyahay ifka lagu yahay walaal qadarkeeyuna waa walaalkana Soomaaliyeed ha la soo dhaweeyo ha loo istaago insha Allah haddaan ahay bahada iskaashato waxaan rajeynaynaa inaan soo gudbino fanaanka markuu yimaado magaalada Muqdisho wuxuu bixin doonaa la wareysi ku saabsan xariga sababaha keenay waxyaabaha kalifay in la xiro fanaanka waxyaabahaas oo dhan uu ka hadli doonaa berito warbaahintu xusin doonaa lahay war sax oo confirm oo buuxa insha Allah anagana bahada iskaashato haddaan ahay waan soo gudbin doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo waana nalaga socon doontiin ciwaankeenan YouTube keenan insha Allah taala barnaamijkan waan ila soo gudbinaynaa waan iga soo gudbin doonaa barnaamijka insha Allah taala waxaan leenahay subscribe like comment-iga intaba noo saara asxaabay soo dhawaada haddaynu nahnay iskaashato entertainment insha Allah berito wixii soo kordho warbixina waa nagala socon doontiin hadduu Ilaahay idmo waan soo gudbin doonaa markuu wareysiga dhiibaya qadarkeeyo insha Allah dad kale oo jooga Muqdisho ayaa inoo soo gudbin doona hadduu Ilaahay idmo waana nagala socon doontiin ayadoo live aan soo galinaynaa hadduu Rabbi raali ka noqdo sidaas nabadgelyo aan leenahay